2022 bishii May dawladda Soomaaliya loo doortay sida caadiga ahayd muddaxileed kasta markuu dhamaado baarlamaan la soo xulo iyo madaxweyne la doorto iyo shir guddoon baarlamaan iyo madaxweynaha soo magacaabay ra'iisul wasaare ay ku dhamaan jirtay doorashada oo ayaanka dareyd weeyaan waayo madaxweyne xasan baa lagu doortay waraabe ayaa waxa la yiri waxa loo dhiibay hal iyo nirig hashi naasiib ka goostay nirigtiina fariyuhu ka goostay waraabe hashi soo godol baa lagu yiri wuxuu yiri maxay ku nuugtaa waa maarush dawladnimadii Soomaaliyeed ee xasan iyo xamse oo ra'iisul wasaare ka dhigtay loo dhiibay maanta faran maran baa laga joogaa midnimadii waa dhaawacantay xiriir ma laha maartay maamul goboleedadii iyo dawladda dhexe wax xiriir ma laha amnigii dalku farahu ka baxay al-shabaab baa labada eriyo ka fadhida waxaaba u sii dheer maartay waxyaabihii wiiga soo baxayay dastuurkii dalka iyo midnimadii iyo nidaamkii maartay federaalka ahaa iyo amnigii iyo dhaqaalihii intaba waa u dhaawacay musuq baahsan oo xasan dalkiisa geliyay oo qoyskiisu ka macaasheen oo adeeg kasta oo dawladdu leedahay dawladdu bixin lahayd oo u samaystay maartay shirkado oo lacagtooda ku urursado waxaynu maqlaynay usbuucan wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhigga oo yiri laba qolo ayaa qori loo ogol yahay al-shabaab iyo dawladda oo ogol yahay in badan waxaad iga maqli jirteen anoo iraahdo al-shabaab iyo dawladda federaalku way isku milmeen wasiiro al-shabaab shalay ka soo galay baa maanta dawladda federaalka wasiir ka ah taliyayaal shalay al-shabaab ka soo galay baa sirdoonkii iyo militariga ku dhex laban iyo booliiskii inay isku dhex milmeen labada shirkadood bay maartay in badan idin sheegay waxaadna maqlayseen dhawaan weerarkii ugu dambeeyay al-shabaab ay ku qaadeen godka Jilicow in dadkii weerarka soo qaaday dhamaantood ay ahaayeen xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee NISA ka tirsan al-shabaab ka soo galay la yiri waa la dhaqan celinayaa maartay saraakiil laga dhigay baabuurkay wateen baabuur garaash ku jira oo la og yahay numberkiisa inay wateen nabad sugiddu leedahay tuutihii iyo hubkii ciidanka inay wateen dadkii Soomaaliyeed ay ku laayeen meydkoodiina wixii iyaga ka dhintay aan la arag si aan saaxiibadood u aqoonsanin taas waxay cadeynaysaa markaa labada al-shabaab inay wada shaqeystaan oo dawladda federaalka ah iyo muxuu ahaayay al-shabaabka maartay dadka Soomaaliyeed gowracayay barakicinayay taliyaal sida mahad salaad ka mid yahay baa hore loogu yaqaanay fiqi baa hore loogu yaqaanay oo muxuu ahaayay isagoo la sawiran ina godane inaan sarkaal saro al-shabaab ahayn ma arki jirin mana arki karayn accesska uu yeeshay inuu godane waxay cadeynaysaa inuu xubin saro al-shabaab ka mid inuu yahay hadalkii wasiirka gaashaandhigga waxa ku xigsaday madaxweynaha oo yiri kaarka niira al-shabaab ha qaateen wuxuu u masuuqayaa markii la diiday doorashadii beenta ahayd ee aan abaabulka lahayn ee nidaamka lahayn ee aan la isku raaxsanayn ee sharciga dastuuriga aan ku fadhiyin ee uu beenta u doonayay dadka inuu ku mijra habaabiyo oo doorasho diid ku noqdo inuu u masuuqayo inuu kaararka niira geeyo meelaha al-shabaab degan yihiin oo uu yiraahdo al-shabaab ha qaato kaararkii oo halka uu nafka raadinayo tusaalayaasheenii hore ayay markaa la mid tahay laba al-shabaab inay horeba u wada shaqaysanayeen haddaba cidii kaarka niira qaadata inagu Puntland hadaynu nahay cadow baynu u naqaanay al-shabaab haddii xasan ku baaqay in niira kaarkeedii al-shabaab qaadatana de waa cadow weey qofkii lagu arkaa waa cadow waana xarig qofkii kaarka niira lagu arkaa waayo cadowgii 12 bilood ciidankeenu la dagaalamayeen cadowgii garaacad ka soo degay waxa weeye 2017kii boqolaalka ahaa 700 iyo dheeraadka ahaa ee garsuuj iyo garmaal lagu laayay iyagoo boqolaal maxaabiistoodii garow la keenay bay la mid yahay kuwa aynu af urur iyo buuraha calmadow kula dagaalanay bay la mid yihiin ilaa 2010kii la dagaalameynay waxba isma dooriyaan nidaamyada dawladdaasi ay wadatana waa mid la mida cadow baynu u naqaanaa al-shabaab dhamaantii haddii niira la soo siiyaa kaarkeeda iyo haddii wax kale la soo siiyaba waxaynu ogeyn inuu ku duulayay maamul goboleedyada ku duulayay oo la dagaalamayay malaha al-shabaab oo shaati kale u soo geliyay oo kaar soo siiyay buu noo soo diri doona haddana oo wadooyinka ay ku soo mari doonaan maadaama ay xirantay uu yaraaday nidaamkii transactionka oo lacagaha la isugu diri jiray oo uu yiri xasan inta uu xukumo xamar buu xukumaa meel kale ma xukumee qofkan kaar ID wadanin bangiga lacag account kama furan karo kaar ma qaadan karo kan ma yeeli karo lacagihiisa ay u fududaadaan isagii al-shabaab isu diri jireen ay kala qaadan jireen ayaa waxa awalba niira kaarkeeda awalba saasa loo furay
qorshu ahaa awalba loo furay haddana in iyaga loo fududeeyo iyaguna askri haysayaan ay lacagta ku dirsadaan oo baananka ku dhigtaan un baa looga jeedaa dagaalka daacish aynu kula jiro oo sanadka soconaya hadda xasan bilowgii si fiican si mug leh oo aan gabasho lahayn buu u dibindaabiyeeyey dhallinyaradeenii shuhadada ahayd ee soo dhaawacmaysay ayuu wuxuu u diiday baasaboorkii emergency-ga loo sameynayay wuxuu diiday diyaaraddii ambulance ahayd ee dhaawaca qaadi lahayd oo Ethiopia iyo meeshii kale loo baahdo geyn lahayd inuu ruqsaddii u diiday taasi waxay cadeynaysay inuu maartay dagaal qayb ka yahay duulaankii burburinta maamulada amniga ah sida Jubbaland iyo Puntland uu ku qaaday cadeyn waxay u tahay inaanu midnimada dalka doonayn argagixisadana uu doonayay inay Puntland aanay ka guuleysan inuu doonayay markuu dagaalka qaadayay sidoo kale inuu dumiyo maamulka Jubbaland inuu dumiyo ciidamadii uu ku daabulay raas Kamboni diyaaradaha ku geeyay gedo weerarkeedii doola weerarkeedii buulaha weerarkeedii waxaas oo dhan waxay cadeynayaan xasan inuu doonayo dalkan inaan waxba loogu iman oo dawladnimadu ay burburto la isku dhaxyaaco markii xasan iyo marxuumka la helow u ah ra'iisul wasaaruhu ay wareereen dawladnimadii waxba ka garan waayeen Soomaali jahayn kari waayeen nidaamkii iyo sharcigii loo dhiibay ay ku dhaqi kari waayeen dalka waxaan maqlaynay xasan xamse ole baa maqlaynay kacaankii dadka Soomaaliyeed madaxu ka qabsaday wuu gaardisiiyay wuu jahwareeriyay xamse isaga jahwareersan oo xasan gaardisiiyay oo shaqadiisii u haysta kacaanku Soomaalinimo horseeday ilbaxnimo iyo dawladnimo dadka Soomaaliyeed uu kacaankii baray maartay miyi iyo magaalaba inay dadka Soomaaliyeed wax qoraan waxna akhriyaan ayuu sahlay waxbarashada bilaash buu kacaankii ka dhigay waxbarashada asaasiga ilaa jaamacadda bilaash buu ka dhigay oo waliba hooy loogu dareeyay qofka wax baranaya oo waliba lacag loogu dareeyay xamse madaxweynihiisa xasan sheekh ayaa dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad la soo baray kacaanku ka bixinayay lacagna ka bixinayay bilaashna wax ku barayay caafimaadka ayaa bilaash ahaa wax soo saarka ayuu kacaanku kordhiyay sida beeraha kalluumaysiga maartay baarista shidaalka iyo macdanta wuxuu gaaray oo higsanayay dalka Soomaaliyeed wuxuu higsanayay maartay dalal badan kaga horeeya Soomaali Afrikaana inuu cuntada iskaga filaado in ka badan 40 warshadood oo warshadii sibirka berbera warshadii maartay warshadii sonkorta jawhar iyo mareere ay kamid ahaayeen warshadii daawada warshadii caanaha warshadii kalluunka oo meel badan ku dhisnaa warshadii hilibka warshadii hargaha iyo saamaha warshadii rasaasta soo saari jirtay iyo qalabka ciidanka qayb kamida mahaday yani dal warshadaysan oo Afrika dalalka warshadaysan ee ugu horeeya ay xilligii kacaanka ay Soomaaliya ahayd ciidan xoog badan buu lahaa xilligii kacaanka dalku wuxuu lahaa sirdoon saameyn dunida kule buu lahaa ciidankii Ethiopia afka dhulka u daray bay Soomaaliya lahayd Soomaali intii kacaanku jiray Djibouti bay xoreysay Eritrea Ethiopia ka jartay iskuulada maanta xasan xaraasha iyo cagafta marinayo waa kuwii uu kacaanku dhisay dhamaantood kacaanku wuxuu qoray farti Soomaaliga afka Soomaaliga farteedii ayuu kacaanku qoray si qof kasta Soomaaliya mi iyo magaalo kii uu joogaba waxna uu akhriyo waxna uu qoro wadamo badan oo dunida ku yaalo xoog la dhaqaalan leh ayaan sidaa sameyn kareyn wuxuu soo qaatay marxuumku baad celintii waxay ahayd mashruuc Soomaaliyeed oo guuleystay buu ahaa baadka xoog badan oo maartay hadda dhul badan oo maartay dalka kamid ah dhibaato ku haya Soomaaliya oo beeraha ku fidayay shalabood maartay baadkii la celiyay oo dhirta lagu beeray oo ciidda la dul saaray maanta baadkaasi wuxuu dhaafi lahaa janaale waa dhaafi lahaa maanta baadkaasi waan filayaa haddana waad garanaysaan qiimo dushiisu qiimay noqotay marka marxuumku waxa fiicnaan lahayd inuu wuxuu hindiso oo wuxuu la yimaado baad celintii iska daayay labada irdoodi xamar buu dhinacna u dhaafi waayay hay'adihii dawliga ahaa ee loogu yimid dhismayaashoodii iyo dhulkoodiina madaxweynihiisa xaraashaya mana oran karo madaxweynuhu daa xilkana kama tegi karo wuxuu dhisay dekedaha berbera muqdisho kismaayo boosaaso wuxuu dhisay wadooyinka waaweyn ee dalka isku xidha ayuu dhisay jaamacadihii kacaanku dhisay waa kuwa marxuumku waa kuwa xasan dal duleeye hadda duminayo cagafta gelinayo oo xaraashanayo dhulkoodiina waa jaamacadihii kacaanku dhisay
wuxuu dhisay hotel curuba, wuxuu dhisay hotel taleex, wuxuu dhisay hotel juba, wuxuu dhisay African Village 1974. waxaa loo dhisay madaxdii Afrika oo shirka midowga Afrika oo magaalada Muqdisho lagu qabanay u imanaya. xaafadan baa loo dhisay oo loo yaqaan African Village. shirku markuu dhamaadayna shaqaalihii dawladda iyo maartay baa la siiyay oo deganaa. carwadii muxuu ahaayay caanka ahayd baa ka mid ahayd waxyaabihii maartay astaanta muuqata ahaa dalkana qiimo gaar ah ugu fadhiyay meelaha hadda xasan xaraashina ka mid ahaa. kacaanku shaqaalaha ka shaqayn jiray hay'adaha dawliga dhammaan waxay lahaayeen guryo ay leeyihiin sida bangiyada, sida caymiska, sida kalluumaysiga, maartay ciidamada. guryahaas dadku degan yihiin kirada ka bixiyaan oo kira jaban ka bixin jireen aakhirka iyaga yeelanayay. kuwii dhaxlay oo abayaashoodii hooyooyinkood ka dhaxlay xasan baa hadda ka xoogay oo xaraashaya. siyaasadda arrimaha dibadda kacaanku saameyn buu dunida ku lahaa. wadamada Afrika oo markaa xornimadooda dagaalamayay oo Zimbabwe ka mid ahayd oo Angola ka mid ahayd oo Namibia ka mid ahayd oo Mozambique ka mid ahayd. kacaanku wuxuu ka geystay kaalin weyn. Algeria ka mid ahayd. kacaanku wuxuu ka geystay kaalin mugle buu ka geystay hadday ahaan lahayd sirdoonka, hadday ahaan lahayd tababarkii jabhadaha. waad garanaysaan Mina Zanaawi iyo Nicolas Abawargi iyo Abel Mursarawi Zimbabwe iyo rag badan muxuu ANC madaxdeeda in badan oo ka mid ah iyo waa ku soo koray oo jaamacadihii dalka ku jiray oo Muqdisho deganaa oo gacanta dawladdu ku haysay sirdoonka iyo qalabka militariga iyo tababaraha laga caawin jiray. wadamo waxaa jiray ciidamadooda cirka iyo bayloodada oo ciidanka Soomaaliya tababari jiray baa jiray. kacaanku wuxuu ahaa maartay waxyaabo badan baa lagu xusuustaa. waxyaabaha la xusuusto waxaa ka mid ahaa saaridii maartay dawladda Ruushka oo dawlad xoog badan ahayd. saldhig maartay aad u qalabaysan oo hubaysan oo diyaarado leh oo maraakiib leh oo ciidan bad leh oo ciidan lugta ah leh maartay ku haysatay berbera iyagoon ogaanin baa la saaray maalin oo feer qaawan maraakiibta la saaray. diblomaasiyiin Mareykan in la cayriyo iyadoon safaaradooda ogaanin loo sheegin Nairobi laga dejiyo dawladooda ogaanin kacaanka oo kaliya ay sameyn kariyay cid kale ma sameyn waana sameysay. isbitaalka Banaadir ee gabadha Soomaaliyeed oo umulayso dhiig ka daayo laga soo tuuray waxaa lagu dhisay kacaankii baa dhisay. waxaana loo dhisay oo ku umuli jiray hablaha Soomaaliyeed baa ku umuli jiray. dhulka maanta xasan xaraashayo maartay waa dhulkii dhamaantood hay'ado dawliya oo kacaankii u asteeyay. waxaynu arkaynay maalintii macalinka iyo xasan iyo stadiumka ardadii uu isu soo saaray oo ka filayay inay u sacbiyaan xasan tuug dooni mayna bay yiraahdeen. adduunka caruurtu hadday ku nacdo waa laga tagaa meeshaas. waxay ahayd xasan maalintaas hadduu caqli leeyahay inuu iscasilo markuu ka soo noqday garoonka markuu ka soo noqday waayo inaan waxba u oolin haddii caruurtii shaarka yelowga asidatay dugsiga dhexe iyo kuwii secondary-gu intuba isugu tageen oo xasan tuug dooni mayna ay yiraahdeen waa halkii xukunkiisa ugu dambeysay iyadoo awalba 6 bilood ay u harsanayd. haddana maaragtay arrintaasi waxay ahayd mid wax ku qaata bay ahayd laakiin damiir wax ku qaata ma laha. niira madaxdeeda waxaynu ka maqlaynay inay tiri Bakistaaniyiin baa naga shaqeeya. hore waxaynu arkaynay e-visa oo la soo kashifay oo xogtiisi banaanka taalo dadka Soomaaliyeed oo qurba joog badan addresskooda emailkooda yani sawirkooda bangiyadooda accountnadoodii oo social media la wareejinayo oo tuugadu ka faa'iideysan karto waynu arkaynay. haddana qofka Soomaaliga ee niira qaadanaya xogtiisu inay bilaash tahay banaanka taalo markii la rabo banaanka la soo dhigi karo ayay taas cadeynaysaa. waxay cadeynaysaa inuu yahay barnaamij ganacsi loogu talagalay in lacag laga sameeyo xasan iyo qoyskiisa oo kaliya. marxuumku eedaha uu kacaanka u soo jeediyay waxaan maqli jiray afnooli waa hadlaa ayna waaciyaa. kacaanku ragii ka shaqaynayay iyo Maxamed Siyaad Barraba Allah u naxariistee maalin meeshay mareen 60 sano xasan uu jiro xamsi 60kiisa ma mari karo maalin meeshay mareen raggaas. waxaan filayaa in ku filan xasan dadka Soomaaliyeed oo dhibaato ah waa u geystay. dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay wax fahmaan oo wax gartaan
in badan baan uga digaynoo lahayn war xasan dalkan inuu baabi'iyo mooyaane waxba ma soo wado xamsana ma laha karti uu shaqada uu hayo oo uu ku xasaanada uu leeyahay oo ra'iisul wasaare inuu go'aankeeda qaato waxna ka bedelo waa ninkaas u dhurtay inuu shaqaale u yahay inuu xogeyn u yahay inuu karaani u yahay oo kaliya xasan weligii aan oranin markii la weydiiyay maxaa dalka kaga tagaysaa inaan madaxweynahayga daacad u ahaa baan kaga tagayaa buu yiri shaqadiisa inuu daacad u noqdo iyo dadka Soomaaliyeed oo kitaabka gacanta u saaray ayaa uga fiicnayd oo madaxweynuhu waxa uu khaldayo uu yiraahdo madaxweynuhu saas inoo ma fiicna waxaynu u dhaaranay maaha mas'uuliyadeedana maaha inuu saa yiraahdo ayaa u fiicnayd dadka reer Puntland waxaan ka sugaynaa inay sidaa u arkaan xasan ninka al-shabaabka u xiibsiibtay oo isagii al-shabaab hore ay isugu milnaayeen laakiin afkiisa ku qirtay kaarka neera inuu al-shabaab siinayo saa ha ogaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.